lagu soo arkay maamul goboleedyada oo hadda aan aaminsanahay anuu dadkii federaalka ku jacjacsan ma ahayn laakiin markaan arkay guddoomiyaashii la magacaabayo in xamar guddoomiye aan ku habboonayn meeshii loo magacaabay in la iska magacaabayo iska fududahay in qof influencegiisa loo magacaabo in dadku maamuladooda yeeshaan oo iyagu soo magacowdaan runtii aad baan u soo dhaweynayaa sababtoo tahay waxaan ku aragnay xamar oo kale xaggana tegi lahaa marka waxaa dhacday in guddoomiyihii gobolka banaadir oo ku dhawaaqay inta soo arkay dhul qurxoon oo maamul leh oo maamulkiisa amnigiisa sugtay markuu inta maaragtay laabtiisii hiir kacay oo damcay inuu tiigsado wuxuu soo arko qurxoona in qaraf la siiyo la gowraco arrintaas runtii aad bay nooga yaabisay dadkaasi waxay yiraahdeen waxaana dhibay kala qoqobnaanta waxaana dhibay madaxweynayaasha tirada badan waxaana dhibay calamada tirada badan allaha hadduu alla yahay oo nin islaam ah tahay madaxweynow dawlad midaysan oo centralized ah rabnaa now ikaali centralization macnaheedu ma aha sida hadda walaalkay u fasirayay in gobernatore iyo maxaa la yiraahdaa DC laga magacaabo xamar ma waxa weeye devolution bedalkan u baahay devolution dawladda Ingiriiska bilowday in gobol walba la yiraahdo maamuladaada hoose dooro laakiin ma aha madaxweynayaal 200 madaxweyne tartaba adduunka baan ugu wareeray ma maqlaysaa iyo calamaan aan garanaynin dalkan hal la xoojiyo ما هذا قبل كم يوكل قبل كبنادر عاصمة الصومالية دوية لما أنا دي كرمال محاهي على نقار لي يبالكي معارض كقار وطن كواو بحيان هدينو كرسي أسيقا وسن جوغين وطن كينو بحيو ديارو ياسو كرسي وقوق هذا لأن الدولة جوغت سقال بلد سيديد بلد دولة دي حسنا وأرقني تنا وأرقني دولة إيضا سند جارنا لمعارضة أيضا وحيتها وحمار كينو آنن صح أهل فرنت لاد وحواي فدرال واديدن شعبك بونتلان دولة بونتلان أيضا نفتر كذا قول إذا فدرال معه لأن الدولة ده هاس ومدجنين ما أملك قبل هذا هاس إنتولوينك مدحوينها مجعابة marka runtii inaan isku sheegna fiican shacbiga Soomaaliyeed cudur uusan qabin daawadiisa hadii la sii ku jirana dawladdu waxay u baahan tahay devolution of power ka hoos in lagu dhaweeyo dadkii adeega uma baahno madaxweyne gobol oo la haysta madaxweynaha go'aankii siyaasadeed ee arrimaha dibadda xayawaan ka hadleen xaqiiqada saas iyo mucaaradnimadiisa ay ku egtahay kursigaas aan tago markuu tago madaxweynaha wuxuu ku mucaaradayo sameeyna marka mucaaradkan waxaan kula talin lahay markaan inaan kala kasno anaga waxaan ku jirnaa dawlad dib u heshiisiin iyo dawlad dib u dhisidana waxa waay in ummadda dhan ay gacanta isqabsato in la heshiiyo in markii wax la isku sheegay laakiin dawlad isburburin oo dawlad kale u shishay u soo wadanayso mucaarad oo qancinayo ama xambaarsan mashaariic ajnabi ah anaga akademigaana ma ka xishoona siyaasadda diblomaasiyiin hadaatiin idinka anaga akademigaana researchers macallimiinana runtii markaan idin sheegno mucaarad aniga aan ku tilmaami karo oo cilmiyeysan oo Soomaaliya joogo maanta ma aan arag wili mucaaradka waa mucaarad ku daaban gacan shisheeye ama gobol ha aata ama ka banaanato marka mucaaradka waxaa looga baahan yahay inay ka xishoodaan gacanta shisheeye marka mucaaradku waxaan ka rabnaa inay dawladda wax la dhisaan meesha ka qaldan u tilmaamaan meesha ka saxayna ka saxaan